بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اجتماعا ما يسمى waxaan nimid inaan ka hadalno arinta roobabkii iyo daadadkii ay kusoo fataheen magaalooyinka sida Beledweyne, Baardheere iyo magaalooyin kale sida Luuq meelahaas magaalooyinka mara webiga Shabeelle iyo webiga Jubba. marka sidaa darteed walaalaha maanta nala fadhiyo waa Abubakar iyo Cumar arrintaas ka hadli doona insha Allah oo lagu duceyn doono dhibaatada ka soo gaartay. marka waxa way biyahaas yani marna khayr way marna dhibaato keenay. marka sidaa darteed tafadal Sheekh Abubakar. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. marka waad yani sida news kan ka daawanay ama fiidiyohaad dadka inoo soo diray ma sha Allah ta'ala waxaan aragnay in wadankii hooyo ama sida Baydhabo laga sheegay ama Baardheere dadka boqolkiiba 89 yani Beledweyne yani ay magaalada yani ay aad u khasan tahay biyihii fatahaadkii aad u batay beerihii dadkii beeranay waxaasan yani subhanallah dhibaato gaartay. musiibadaas waxaan leenahay dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkaasi dhibaatada haysto oo gurigoodii waxyaalahaas oo kale dhan biyaha daadka qaaday. waxaan leenahay sabra oo raadiya wax bedel ah raadiya wax bedel ah. طبعا انا waa duceyn karnaa maanta wax kale aan qaban karnaa ma jirno tawakkul laakiin qof tawakkulkii duco waxa loo baahan yahay inuu asbaab qaado. asbaabtaas waxaa ka mid ah yani waxyaalahan ummadda ku soo noqonaysa fatahaadkan iyo waxaas oo kale sida loo xakameyn lahaa in la raadiyo dad khubaro ee magaalada. طبعا dadka waxa maanta waxa hal bilna anaga aan ka damqano aan raadino Facebook iyo waxaalaas aan ka sheegno laakiin meesh looga tago malafka saas loo xiro. laakiin hadii laga fikiro baa sanad dambe waxa uu xakameynaa biyaha waa nimco صح biyaha waa nimco aslan wax dib ma qabaan laakiin nimcada waxay ka baxdaa wixii markii la heli waa meel booydo iyo wixii lamid ah meel wixii lamid ah yani lookeedii iyo waxaas oo kadii la heli waa dhibaato imaanaysa insha Allah ta'ala. waxaan leeyahay hala qaado sawaha lagu xakameyn lahaa biyahan ama wawiyada ama maxal dhilahay booyadaha ama yani buundooyin waxaas ay kala sameeyay ma sha ta'ala ama meel biyaha lagu xareeyay. sidaan jazakallahu khayran wa sida Sheekh Cumar uu sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaa waxay tahay walaalaha dhibaatada ka gaaray in uu u gargaaro amiin. sidoo kale uu ka dhigo kuwa sabra insha Allah ta'ala ama u ducin doona insha Allah ta'ala sabra ayaan leeyahay. sidoo kale sida sheekha uu sheegayay in yani inaysan noqon dhibaato sanad walba iyo mar walba soo laalaabato in xalkeeda la raadiyo in cashar laga barto sidee bay ku timid yani qofka in laba mid loo baahan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tala saarto asbaabtana uu qaado uu ogaa sidee ku timid maxaa sababay in arinta ay timaado si yani marka aysan u imaan cashar loogu barto loogu badbaado yani in si aysan u noqon sanad walba wax soo laalaabato. wadamadan oo kale mesela صح صدقات waxa dadku waxa ka fikiraan sadaqad dadka salaaw lacag way fiican sadaqad dadka loo aqoon sadaqad lacag aragona way fiican tahay laakiin ha laga fikiro lacagooyin kale oo dad dhiibayaan oo lagu dhisayo waxyaalahaas oo kale sida waxa khubaro arintaas ku dadka khubaradan waxaan ka codsaynaa insha Allah takhasus ku ah in arrimahaas oo kale fikrada iyo dayactir iyo waxyaalahaas mashqadeyn cusub ay u keenayaan. wadamadan hadaan ku noolnahay مثلا Holland oo kale waa biyo badan tahay laakiin wax biyo badan ma lahan ayadan waa biyo ahayd bas sida loo xakameeyo booyada iyo wix la mid ah ولا سعنا ما شاء الله تعالى. بس أوجد 10 كبرت إن شاء الله تعالى بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله خيرنا خلينا بإذن الله إله خير كبير. آمين آمين بارك الله فيك.